السلام عليكم مخجارة شرفت عليك وحنا جنالك جيلك ما انت كسر هذا مركله يوم مقال عصب صاد قرنيسان وساحبكين عثمان اوكي الدون كان كوبا حد وين انه كنا ناي وحاجر الشخصيات مركز انه ولا نول كواسو الهي اوسي مركز يعني هبه gooniya aysan markaas dadka gabigooda ama badankooda aysan sameyn karin isla markaasna dadka hibooyinka gaar kale waxa lagu kaydiyaa markaas dhacdooyinkooda buug la yiraahdo Guinness World Record muqaalkeenan maanta waxaan ku soo qaadan doonaa markaas shakhsiyaad Guinness World Record aad kaga yaabsaday ama markaas hibadooda ay tahay markaas mid aad u cajiib ah bal yaan war badan wax baydin ku daalinee soo dhawaada ugu horreyn sitaan ku bilaabin muuqaalka ku soo dhaw jeelka maanta channel aan ku soo qaadana markaas ama baan uga hadalno dhacdooyinka caalamka kuwada la yaab kale sida kuwa aan maanta ku hayo oo kale subscribe saaro haddii aad ku cusub tahay haddii aad hore inoola joogtana aad baad ugu mahadsan tahay muuqaalkan xaqiisa siiya oo like iska saar inta kadib aynu muuqaalkeenan ku furanno shakhsi ugu horeeya ama koobaad aadna markaas kaga yaabsaday Guinness World Record iyo dadweynaha caalamka oo dhan waa shakhsi lagu magacaabo markaas Gary Turner wuxuu ka soo jeedaa shakhsigan UK ama United Kingdom bal haatan maskaxdaada waxay isweydiinaysaa bal ninkan hibadiisu maxay tahay ama markaas unique talent uu ilaahay siiyay maxay tahay balan kaaga dhaco Gary waa nin u dhashay markaas aan ku soo sheegay UK sidoo kale waxa lagu naanaysaa markaas the elastic man ama ninkii elastic ah ninkan Gary leeyahay wuxuu awood buuxda leeyahay in maqaarka jirkiisa uu sidii elastic oo kale u kala jeejeedo macnaha maqaarkan caadiga ah wuxuu awood leeyahay inuu xitaa afkiis ku dabasho ama markaas meeshu uu doono geeyo sadarkaysan anigu xaggaas ma dhaafayo balse isagu maqaarkankiisa waa mid markaas meeshu uu doono geeyn karayo bal aan kaaga sii faaloone muuqaalkiisan ila daawo Give it to them, Gary. sadaragteen ninkan arrinta uu sameeyay qaarkiin waxa laga yaabaa inay idin cabsi gelisay oo maqaarkiisii wadarkaysan markaas sida uu ka yeelayo qisada ninkan oo gaaban haddii aan ku raacsiyo sidoo kale waa nin ku dhashay cudur loo soo gaabiyo ADS waa mid kamid markaas cudurrada ku dhaca maqaarka bini'aadamka kaasoo la leeyahay markii uu dhalanay haweeneydii uu mulinaysa waxaaba sheegtay ninkan inuu noqon doono markaas nin aan ba maqaar lahayn shakhsigan koobaad waa Gary Turner isla markaasna wuxuu galay markaas buug la yiraahdo Guinness World Record oo waa ninka kaliya maanta maqaarkiisa يعني فيدين كارو أما مركز جيد كارو ماشي ودون مركز جين كاريو أنا كجذبنا أنا كوس وقت مركز شخصي جينا لبعض مت كان أنا هو مجال ليس دونتيد إنه مركز صح نحكوا ولا عنو بلين كان وأنا مركز كسر جيدا قاردا مدو أفريقيا وأنا أفريقيا especially وطن اللي هذا أنغولا بقى سنة سيدو كلام كوسي راعي وبحال هذا فرانسيسكو جاكوينو بس سيدو كله محل سليده هبدا نين كان ومد نوعية نين كان لو مجاو فرانسيسكو جاكوينو وأنا كمركز adduunkan ay maanta ku noolnahay ugu afka weyn ama markaas ugu afka balacsan qisada ninkan iyo sidoo markaas Guinness World Record ku galay aan kaaga dhaco marka hore ninkan waa nin markaas iska aha markaas dadkan dirbijiifka oo markaas hooylaanta hayso oo hooylaan buu ahaa balse muuqaal ay dad markaas ka soo duubeen oo markaas isaga ciyaarayay yani isaga falaadayay ninkan afkiisa muuqaal ay ka soo duubeen ayaa la soo upload gareeyay isla markaasna la soo geliyay dhankaas YouTube markii la soo geliyay muuqaalkii baariyaal markaas ka socda Guinness World Record ayaa wadankiisa ku booqday iyagoo markaas u aqoonsadaba inuu yahay markaas ninka adduunka ugu afka weyn afkiisuna waa markaas mid ay geli karayaan xitaa gasacada markaas laga cabo Coca-Cola oo afkiisa kor ama balacahan wuxuu u furmayaa markaas 16 cm imisa sacab oo bariis ay geli kartaa is leedahay nin afkiisa 16 cm uu furmayo Francisco Jacquino sida taas wuxuu ku galay markaas Guinness World Record oo wuxuu haystaa markaas شهادة نيجا دونك أو أفك وين أنا كسر قدونا أفوين كعالم كأ أنا كوسا قمت مركز شخص سدحات أنا مانتكو هايو وقبر مركز أما هويني لو مقعبو كثاي يونغ وهويني كسر جدا يونايتد ستيت أما بقى أمريكا حسب بدن أو سومالي وادركتين أو قبل هنا لو أمانة يقول لها وحاتها لحجرتي الدونكيو وحاتها مد دائما يعني محمد عسكر إن بدن وادركتين بل سهاس يعني قبل هنا لو أمانة وحملني كراب أما لنا هيبا مركز دركت قبل دان أما هويني دان إذا أي كسعودان بل هوينيدان كثاي يوم اللي يراهدو waa markaas haweeneyda adduunka uu dhaxyarta adduunka waa iyada oo dhaxdeeda cabir ahaan waxay gaaraysaa taasoo markaas ka dhigaysa haweeneyda adduunka ugu dhaxyar isla markaasna waxay haysataa markaas shahaadada Guinness World Record haweeneyda ugu wastiga yar ugu dhaxyar aan ka soo gudubnay dhaxyarta adduunka aan soo qabta markaas shakhsigeena xiga aan markaas kugu hayo isla markaasna aad kaga yaabsaday buugan yahdo Guinness World Record waa shakhsi ama wada yar lagu magacaabo Maxwell Day
Maxwell wuxuu ka soo jeedaa United Kingdom ama UK sawirkan haatan aad u jeedo maahan markaas sawir lagu sameeyay Photoshop oo waxaad arkaysaa ninkan lugihiisa iyo madaxiisa markaas waa kuwa kala jeeda oo ninkan Maxwell yiraahdo waa qofka kaliya maanta awood u leh in lugihiisa iyo madaxiisa uu yacni kala jeediyo 157 degree ayuu kala jeedi karaa tusaale lugihiisa wuxuu ka dhigaa qof hor u jeedo madaxiisana wuxuu awood u leeyahay inuu ka dhigo qof gadaal u jeedo bal aynu isla wada daawanno muuqaalkiisa ninkan Maxwellna sidaas wuxuu ku galay Guinness World Record ninka adduunka cagihiisa kala wareejin karaya oo ma jira markaas qof maanta cagihiisa sidaas u kala wareejin karaya laga yaabay mustaqbalka in uu soo baxo bal numberka shanaad shakhsiga ku jira ee maanta ku hayo aan sidoo kale ku soo qabto shakhsigan ama lamaanahanba waad la yaabi doontaa runtii waa lamaana markaas sameeyay tan maxaa la karaa tan maxaa la horta mushrooms waa lamaana markaas Guinness World Record kaga soo qayb galay in ay yihiin kuwa lamaanayaasha adduunka ugu romanticsan oo waa kuwa markaas in ka badan 58 saacadood 35 daqiiqo iyo 58 second markaas isdhunkanay ama ishuminay oo muddo laba habeena iyo laba maalina ay markaas yani alaabihii romantiga ay ku hayeen sida taasna Guinness World Record waxay ku galeen lamaanaha adduunka ugu romanticsan oo in ka badan 58 saacadood ay dhaxdis ka hayeen number 6 shakhsiga inoogu jira number 6 aan ku soo qabto waa nin lagu magacaabo Ahmed Tafsi waa nin markaas ka soo jeeda san qiyaasayo Masar ama Egypt balse waa mid ku nool Germany odaygan ama ninkan waad la yaabi doontaa markaas madaxiisa waa ninkaas ninka ugu madaxa adag haddii aad maqli jirtay madaxa adag waa ninka markaas ugu madaxa adag waa number 1 ayaad geli doontaa haddii aad aragto sida uu wax yeelayo wuxuu markaas Guinness World Record kaga soo qayb galay ama markaas shahaadada Guinness World Record ku helay inuu yahay ninka kaliya ee markaas madaxiisa ku jibiyay ama ku jibin kara in ka badan 25 qaro ama xabxab qare ama xabxab saad u garanayso in ka yar hal daqiiqo ayuu madaxiisa wuxuu ku jibiyay 25 xabxab ama qare bal muuqaalkiisa ila daaw marka hore Kathleen haweeneydan lagu magacaabo kana soo jeeda Jarmalka waa haweeneyda markaas Guinness World Record kaga soo qayb gashay inay tahay haweeneyda ugu xoog badan bal marka hore inuu tus muruqaaga haweeneydan haatan sawirkeeda idin muuqdo ama fiidiyogeeda kana soo jeeda markaas Jarmalka waa markaas haweeney aad u xoog badan waa markaas awoodeeda ay tahayba in ay markaas bir walba ay jibiso bal bir walba dhimayne waxay awood u leedahay markaas birtaawadan markaas canjeerada amaba lagu dubto ukunta English lagu yiraahdo ban ay waxay awood u leedahay markaas in ay gacanteedu ku laalaabto ama ay ku jibiso ama ay markaas ku shiido wax walba dhehe 3 2 1 go bal shakhsigan ugu dambeeya numberka 8aadna inuu jira aan ku gabagabayno waa haweeney lagu magacaabo markaas Kim Goodman waa haweeney isla markaas u dhalatay United States of America balse haweeneydan waa mid markaas ficilka ay sameynayso aad maxay toor u jaray doontaan ama aad u cabsan doontaan bal haweeneydan waa haweeney awood buuxda u leh in markaas indhaheeda hadda waa indhaheeda ay yani banaanka boom soo siiso dabadeedna ay meeshii ku celiso haweeneyda maanta Guinness World Record ku gashay haweeneyda markaas eye popper ama markaas indhaheeda banaanka soo saari karaysa ku celi karaysa u soo saari karaysa ku celin karaysa bal intaas ay ahaayeen markaas 8 shakhsi ee idinkaga soo arooriyay Guinness World Record ama buugan leeyahay Guinness World Record bal qayb labaad haddii aad jeceshiin aan ka soo sameeyo dhankaasi commentiga waad igu sheegi karaysaan muuqaalkan ha ilaabin markaas inaad like saarto taasoo markaas wax badan inaga saacidaysa inuu muuqaalkan dad badan gaaro sidoo kalena aad baad ugu mahadsan daawashada quruxda badan markaas ku soo gaartay ilaa gabagabada waa jeelka maanta oo idin leh salaam calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh